halkan oo magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa sanadadii u dambeysay waxa ku soo badanay gawaadhida shacabka adeegsadaan ee loo yaqaan bajaajta ama tigaha gawaadhidaasi oo darawalladoodu ay u badan yihiin dadka aan qaan gaarin ama mas'uuliyadda qaadin iyagoo u dhaxeeya da'da 10 ilaa 15 sano shacabweynaha magaalada Burco cabashooyin ka muujinayay bilihii u dambeeyay gawaadhidaasi adeegsigooda ayaa saaka telefishinka STN TV la qaaday mikrofon isagoo u diray ra'yigooda ku aadan tigahaasi bismillaah halkan waa Cabdi Ibrahim Maxamuud waxaanan u mahad celinay STN TV waa mahadsantihiin waxa weeye waxa barnaamijku maanta ku eegyahay oo TV-gu u duubaya tigaha waxa laga qabay dadku ka qabaan tigaha waxa laga qabaa horta waxa weeye waa hawl fududayn wadooyinka sida khaladka u galaya ee aan hadadka kala garanayn ee dadka dhibaataynaya iyagoo labadii tigood mid waliba hadkeeda ay mid soo cararaysa mid kale afka gelinaysa takalftada gelinaysa midba mid afka gelinayso darwalinta aanu qalmin qasaarana way ku hayaan faydo way u hayaan hortaayo waa hawl fudeediyo baskii labada saacadood buuxsamay magaalada hortaade way magaraasa u fudeediyeen saddex qof qaasa wala carras dibna way hayaano hortaayo qof yar oo qeyrin mas'uul aan wada hadrawalnimadii waxba ka garanay wadadii waxba ka garanay horta dadkana qasaaray ku hayaan dalkana dib bay ku haynayaan wada artaayo ciyaal yar baa wado wax kasta wadi gaarko maanta hadii gaari gala tigba galaysa hadii wax shilka ugu badan tigba gasho wada artay oo aragtaayo haduu ilaahay idinkeeda leey wada luuqad ka soo laabtaba tigba maras muqaadaraad haday noqoto tigba sida haday wax kale noqoto tigba sida waxaan raacinayaa baalahan tigaha la yiraahdo horta gaadiid loo baahayay marka hore ha loo baahnaado laakiin dhibaatadoodii ayaa aad u badatay waxa wata rag aan mas'uuliyad qaadi karayn aan mas'uulahayn baa wata marka waxaan u sheegayaa in sharciyada la mariyo oo wax aan la kala saaro oo wixii liisa marana gaadiidka loo dhiibo wixii aan liisa lahaynna laga reebo imika laamiga aad maray waxaan raacinayaa waxaan mas'uul maaha inta mas'uulka ah wax tirsan oo yar wadooyinka way jarayaan iyagoo afar baysta inta suuda taagaan ay isku wareysanayaan garan maayaan gaadiidkan ka bayda wadadan ka bayda mas'uuliyadoodu ma aha mid caadi ah oo dhameystiran inta ay imika boqolkiiba marka imika xeerlaaninta subaxii aad tagto xeerlaaninta marka subaxii tagto waxaad u tagaysaa danka kale waxaan arrinkaas wax ka weydiinay xogayaha dawladda hoose mudane Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo ka warbixiyay tigahaasi bismillaah rahmaan rahiim tigaha anigu waxaan u aqaanay dalanjooli asaasi dhibaato badan bay dadku ku haysaa waxay ku haysaa dadka wata waa qeyral mas'uul waxay u badan yihiin da'da inta u dhaxaysa 10 ilaa 20 inta u dhaxaysa ayay u badan yihiin dadka wata had iyo jeer dadka wata dhalinyarta ah waxa uu iibiyo waalidkood iyaga oo doonaya inaanay tahriib galin oo ay kaga baajiyaan tahriibka ay xakamo uga dhigaan bahalka yar way iibiyaan marka labaad dadka wata ee mas'uuliyadda maskaxdoodu aanay ku filayn waxay sameeyaan suuqyada si qeyr mas'uul la gaarsiinayo oo gaadiidka dadka kale shacabka wata waxyeeladiisa la gaarsiinayo dhibaato tahay oo ay noolaha kale xayawaanka iyo xooluhu la mid ay jiirayaan dhibaatadaas oo dhan dadka waalidka dhalayna way u soo iyagu bay ku soo noqonaysaa marka in laga wacyi geliyo in wax loo sheego in la taliyo in la toosiyo intuba waa waajib gaadiidka kale laftooda sida basaska kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar iyo tagaasida intubana way ka cabataa iyagoo aan xad badan u kala sameynay oo aan istaama u kala sameynay oo istaama kala leeyihiin ee haddana baasha dhalinyarta wadataa xadgudub badan samaysaa subax kasta dacwadooda loogu timaada halka marka sidaas aan u leeyahay insha Allah taala garaad yaasiin warka telefishinka STN TV Burco